marka fahamka guud oo maanta halkan aan rabo in aad looga qaato oo ah macnaha ereyga federaalka waajibka ay leeyihiin uu kala leeyihiin baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo aan metelno annaga dowlad goboleedyada oo dhanan metelnaa halka golaha shacabku ay metelo xildhibaankiisu deegaan doorasheedkiisa oo kaliya isla markaasna uu taagan yahay dalka oo dhan metelaadiisa marka waxaan rabnaa in aan la isku khaldin waxa la yiraahdo waajibaadka dastuuriga ah oo shacabka Soomaaliyeed aad cod dheer maanta aan rabo inay halkan ku fahmaan marar badan aan la wadaagay federaalku inuu yahay nidaam siyaasadeed oo macnihiisu yahay baahinta xukunkii oo la baahiyey siyaasiyana ah heshiis siyaasadeed oo Soomaaliya ay ku heshiisay wadaniyada dalka midnimada dalka horumarka dalka dhammaan waxaan anigu personally ka dhaxarkaa sida dastuurka ku cad nidaamka federalismka dalka maxaa yeelay waxaa dadka isku haya Kismaayo ma lahaan jirin markii hore waxa la dhihi jiray sida aan maqlay Kismaayo iyo kistaada nin nafta nabi umada maantay magaca loo bixiyay oo aan ku arkay meelaha tabeelooyinka ku qoran kaafiso iyo kulmiso waa baraka aad ka hesheen federaalka horta federaalku wuxuu awood siinayaa tuulooyinka ku hareeraysan magaalada Kismaayo in ay go'aankooda gaaraan